waxa maanta degmada Celifina gobolka Sanaag lagu soo dhaweeyay Suldaan Siciid Yuusuf Xaaji Ducaale waftigan oo ka soo kicitay deegaanka Laastomaare ayaa waxa degmada Celifina ku soo dhaweeyay waftigii xukuumadda ee nabadeynta u joogay degmadaasi Celifina gobolka Sanaag ujeedka socdaalka suldaanka ayaa daarnaa sidii uga qayb qaadan lahaayeen nabadeynta deegaanada Celifina gobolka Sanaag ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin Axmed wasiir Maxamed Kaahin ayaa halkaasi ka jeediyay hadallo soo dhaweeyna waxaana hadalladiisii kamid ahaa Suldaan Siciid waa yeelka kale odayaasha la socday waa yeelka kale halkan ku soo dhaweeyay anigoo ku hadlaya magaca golaha dawladda ee halkan jooga waxaan aad iyo aad baan halkan u soo dhaweynayaa imaatinkooda iyo hawshooda ay halkan ku yimaadeenna aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa hawsha aynu ku jirnaa waa nabadgelyo waxaynu samayn doonaa haddii alla yidhaahdo gidigeen waxaynu ku wada tabcaynaa waa nabadgelyada wixii hawlaha imika intan ka dambeeya gaar baa looga wada hadlayaa hadday taguud tahay iyo hadday wixii gaaraba tahayna suldaan adag iyo raggaagii kula socdayba aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa gacmo furan baanu idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan baanu idinku soo dhaweynaynaa geesta kale waxa isaguna hadallo mahadnaqa u jeediyay Suldaan Siciid Yuusuf Xaaji Ducaale isagoo uga mahadnaqay cid kasta oo ka soo qayb qaadatay soo dhaweyntiisa golaha wasiirada golaha salaadiinta golaha cuqaasha waxgaradka ningarboodka maamulka degmada Ceelif Weyn dadkiina soo dhaweeyay sida qiimaha leh iyo sharafta iyo karaamada leh noo soo dhaweeyay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanu ballan qaadaynaa inaanu nabadda wixii nagaga beegan aanu ka qayb qaadanayno kana qayb qaadanaynay kuna dadaalaynay wixii iminka laga bilaabo aanu diyaar u nahay waxaan leeyahay mar labaad haddaanu nahay beesha Axmed Faarax aan waayeelkoodii ahay waxaanu ballan qaadaynaa inaanu gogoshii labada beelood dignay oo dhigayno magaalada Fadhigaab beesha Sacad Yuunis Jibriil Xasan ama dhammaantoodba waxaanu ka codsanaynaa inay naga aqbalaan gogosha aanu dhigayno ee taala Fadhigaab aanu dhigayno inay naga aqbalaan ma ka codsanaynaa ومحمد صوت تلفزيون كقرن كسوماليلاند علفوي waxa maanta degmada Celifina gobolka Sanaag lagu soo dhaweeyay Suldaan Siciid Yuusuf Xaaji Ducaale waftigan oo ka soo kicitay deegaanka Laastomaare ayaa waxa degmada Celifina ku soo dhaweeyay waftigii xukuumadda ee nabadeynta u joogay degmadaasi Celifina gobolka Sanaag ujeedka socdaalka suldaanka ayaa daarnaa sidii uga qayb qaadan lahaayeen nabadeynta deegaanada Celifina gobolka Sanaag ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin Axmed wasiir Maxamed Kaahin ayaa halkaasi ka jeediyay hadallo soo dhaweeyna waxaana hadalladiisii kamid ahaa Suldaan Siciid waa yeelka kale odayaasha la socday waa yeelka kale halkan ku soo dhaweeyay anigoo ku hadlaya magaca golaha dawladda ee halkan jooga waxaan aad iyo aad baan halkan u soo dhaweynayaa imaatinkooda iyo hawshooda ay halkan ku yimaadeenna aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa hawsha aynu ku jirnaa waa nabadgelyo waxaynu samayn doonaa haddii alla yidhaahdo gidigeen waxaynu ku wada tabcaynaa waa nabadgelyada wixii hawlaha imika intan ka dambeeya gaar baa looga wada hadlayaa hadday taguud tahay iyo hadday wixii gaaraba tahayna suldaan adag iyo raggaagii kula socdayba aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa gacmo furan baanu idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan baanu idinku soo dhaweynaynaa geesta kale waxa isaguna hadallo mahadnaqa u jeediyay Suldaan Siciid Yuusuf Xaaji Ducaale isagoo uga mahadnaqay cid kasta oo ka soo qayb qaadatay soo dhaweyntiisa golaha wasiirada golaha salaadiinta golaha cuqaasha waxgaradka ningarboodka maamulka degmada Ceelif Weyn dadkiina soo dhaweeyay sida qiimaha leh iyo sharafta iyo karaamada leh noo soo dhaweeyay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanu ballan qaadaynaa inaanu nabadda wixii nagaga beegan aanu ka qayb qaadanayno kana qayb qaadanaynay kuna dadaalaynay wixii iminka laga bilaabo aanu diyaar u nahay waxaan leeyahay mar labaad haddaanu nahay beesha Axmed Faarax aan waayeelkoodii ahay waxaanu ballan qaadaynaa inaanu gogoshii
labada beelood dignay oo dhigayno magaalada Fadhigaab beesha Sacad Yunis Jibriil Xasan ama dhammaantoodba waxaanu ka codsanaynaa inay naga aqbalaan gogosha aanu dhigayno ee taala Fadhigaab aanu dhigayno inay naga aqbalaan ma ka codsanaynaa. ومحمد سوتو تلفزيون كقرن كسوماليلان علفوي وحمانت الدقمة علفين الجبل كاسناق لقوا سودوية سلطان سعيد يوسف حاج الدعالة وفتق إنه كسوق اعتمد الدجان كالاستومار أي واحد دقمة علفين كسودوية وفتق حكومة نبدين تأشوا الدقمة علفين الجبل كاسناق وشيت كسعودار كسلطان كأي دار ناس دي وقع قريب قادن لهاين نبدين الدجان علفين الجبل كاسناق وقرنت وحال كاسكاد لو وزير كوزارة دارمها جدها مدن محمد كاهن أحمد وزير محمد كاهن أي هالكاسكاد شدي هذا لو سودوينا وحنا هذا الذي سيكم ذا سلطان سعيد waayeelka kale odayaashii la socday waayeelka kale halkan ku soo dhaweeyay anigoo ku hadlaya magaca golaha dawladda ee halkan jooga waxaan aad iyo aad baan halkan u soo dhaweynayaa imaatinkooda iyo hawshooda ay halkan ku yimaadeenna aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa hawsha aynu ku jirnaa waa nabadgelyo waxaynu samayn doonaa haddii alla yidhaahdo gidigeen waxaynu ku wada tabcaynaa waa nabadgelyada wixii hawlaha imika intan ka dambeeya gaar baa looga wada hadlayaa hadday taguud tahay iyo hadday wixii gaaraba tahayna suldaan adag iyo raggaagii kula socdayba aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa gacmo furan baanu idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan baanu idinku soo dhaweynaynaa. geesta kale waxa isaguna hadallo mahadnaqa u jeediyay Suldaan Saciid Yuusuf Xaaji Ducaale isagoo uga mahadnaqay cid kasta oo ka soo qayb qaadatay soo dhaweyntiisa golaha wasiirada golaha salaadiinta golaha cuqaasha waxgaradka ningarboodka maamulka degmada Ceelaf Weyn dadkina soo dhaweeyay sida qiimaha leh iyo sharafta iyo karaamada leh noo soo dhaweeyay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaanu ballan qaadaynaa inaanu nabadda wixii nagaga beegan aanu ka qayb qaadanayno kana qayb qaadanaynay kuna dadaalaynay wixii iminka laga bilaabo aanu diyaar u nahay. waxaan leeyahay mar labaad haddaanu nahay beesha Axmed Faarax aan waayeelkoodii ahay waxaanu ballan qaadaynaa inaanu gogoshii labada beelood dignay oo dhigayno magaalada Fadhigaab beesha Sacad Yunis Jibriil Xasan ama dhammaantoodba waxaanu ka codsanaynaa inay naga aqbalaan gogosha aanu dhigayno ee taala Fadhigaab aanu dhigayno inay naga aqbalaan ma ka codsanaynaa. ومحمد سوتو تلفزيون كقرن كسوماليلان علفوي وحمانت الدقمة علفين الجبل كاسناق لقوا سودوية سلطان سعيد يوسف حاج الدعالة وفتق إنه كسوق اعتمد الدجان كالاستومار أي واحد دقمة علفين كسودوية وفتق حكومة نبدين تأشوا الدقمة علفين الجبل كاسناق وشيت كسعودار كسلطان كأي دار ناس دي وقع قريب قادن لهاين نبدين الدجان علفين الجبل كاسناق وقرنت وحال كاسكاد لو وزير كوزارة دارمها جدها مدن محمد كاهن أحمد وزير محمد كاهن أي هالكاسكاد شدي هذا لو سودوينا وحنا هذا الذي سيكم ذا سلطان سعيد waayeelka kale odayaashii la socday waayeelka kale halkan ku soo dhaweeyay anigoo ku hadlaya magaca golaha dawladda ee halkan jooga waxaan aad iyo aad baan halkan u soo dhaweynayaa imaatinkooda iyo hawshooda ay halkan ku yimaadeenna aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa hawsha aynu ku jirnaa waa nabadgelyo waxaynu samayn doonaa haddii alla yidhaahdo gidigeen waxaynu ku wada tabcaynaa waa nabadgelyada wixii hawlaha imika intan ka dambeeya gaar baa looga wada hadlayaa hadday taguud tahay iyo hadday wixii gaaraba tahayna suldaan adag iyo raggaagii kula socdayba aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa gacmo furan baanu idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan baanu idinku soo dhaweynaynaa. geesta kale waxa isaguna hadallo mahadnaqa u jeediyay Suldaan Saciid Yuusuf Xaaji Ducaale isagoo uga mahadnaqay cid kasta oo ka soo qayb qaadatay soo dhaweyntiisa golaha wasiirada golaha salaadiinta golaha cuqaasha waxgaradka ningarboodka maamulka degmada Ceelaf Weyn dadkina soo dhaweeyay sida qiimaha leh iyo sharafta iyo karaamada leh noo soo dhaweeyay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaanu ballan qaadaynaa
inaanu nabadda wixii nagaga beegan aanu ka qayb qaadanayno kana qayb qaadanaynay kuna dadaalaynay wixii iminka laga bilaabo aanu diyaar u nahay waxaan leeyahay mar labaad haddaanu nahay beesha Axmed Faarax aan waayeelkoodii ahay waxaanu ballan qaadaynaa inaanu gogoshii labada beelood dignay oo dhigayno magaalada Fadhigaab beesha Sacad Yunis Jibriil Xasan ama dhammaantoodba waxaanu ka codsanaynaa inay naga aqbalaan gogosha aanu dhigayno ee taala Fadhigaab aanu dhigayno inay naga aqbalaan ma ka codsanaynaa ومحمد صوت تلفزيون كقرن كسوماليلاند